kale waxaan leeyahay hambalyo sanadurada lixdamaad ee ka soo wareegtay maalintii gobolada waqooyi ee xorriyadooda heleen 26 Juun 1960 oo ku soo aaday maanta inaan fursad u helno inaan jaaqadkii muddo dheer 30 sano ku dhawaad burbursanaa inaan sidaan ka dhigno allah mahad kale oo runtii maanta noo suurtageliyey inaan halkan kulligeen ku imaanno oo aan markhaati ka noqonno waxa aan u kacno inaan dhisan karno inaan waxaan rabno qabsan karno haddaan isku tashanno ilaahayna tawakkalno macnaheedu waxay tahay isxilqaan markaan sameynayno dad badan yaa shaki ka qabay oo lahaa haddii aynan helin gacmo shisheeye see wax u qabsan karnaa waxaan idhi shisheeye biyo sacbadaada looga dhargaa waxa adu aadan qabsan qof shisheeyaha kuu qaban maayo shisheeye wuxuu ku caawin karaa markii uu ku arko inaad socoto tan daliil waxay u tahay marka oo tusaale u tahay dalkeenna sidii uu ahaa awal iyo si ka wanaagsan inaan u dhisan karno gacmaheenna aan ku dhisan karno wiilashaan iyo gabdhahan inay hormuud ama horseed ka noqon karaan qof walba oo Soomaali ah khaasatan dhalinyarada ay ku dayan karaan waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb galay hawshan xilqaan oo ah hawl socota oo qorshaheedu yahay ama mabdi'iisu yahay inaan dib ugu dhisno dalkoo dhan gacmaheenna aan ku dhisanno waxaan u mahadcelinayaa ganacsatadii ku bixisa dhaqaalaha maxaa yeelay la'aantood waxaan ma dhacdeen runtii gacan ayay ka geysteen rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsada Soomaaliyeed oo doonaysa dalkooda in dib uu dhismo aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha rayidka oo waqtigooda geliyey waxaan ka hadlaynay waxay ahayd usbuucii 1 saac ama 2 saac inaad danta guud geliso sida tan oo kale tan waxay calaamad u tahay meeshaan qurxoon aan fadhino oo weliba sidii hore ka qurxoon inaan dalka sidii hore iyo si ka qurxoon aan u dhisan karno haddaan u istaagno kulligeen Soomaali waa nooshahay Soomaali waa noolnahay wax walbana waa haysanaa dad waa haysanaa khayraad waa haysanaa laakiin waa inaan u istaagno waa inaan ka shaqeyno midnimadu waa xoog ummad midaysan lagama adkaado ummad midaysan waxaysan qaban karin malaha ummaddu hadday kala qaybsan tahay waa waxaan ku jirnay muddo aad u badan oo 30 sano ku dhow aan ku jirnay maxaa loo qabsoomay eebsanaanshuhu waa burburis in wax la burburiyo iyo wax la hadleeyo ummadda markay isu timaado ay midoodo caqliguna waa midoobi dadka fiican yaa soo baxaya laakiin markay noqoto ummaddu inay qaybsan tahay ama qabiil ku qaybsan tahay qof walba qofka ugu xun yaa soo baxaya hadda qof xun maxaa ka sugaysaanay qof xun muxuu dhisi karaa taata kaan qurxoon ma dhisi karaa xaqiiqatan tan daliil waxay u tahay waa ku celinaya isku duubnaanshaheenna wada shaqaynteenna midnimadeenna wax weyn ayay noo goysaa waxay noo goysaa Afrika inaan hormuud u noqonno ayay noo goysaa adduunka in la tilmaamo ayay noo goysaa waxaan leeyahay oo qayb ka ah in isxilqaan iyo dhismaha dib u dhiska dalka la qabto waxaa koow ka ah in la helo dadkii wacyigelin lahaa suugaantii heesihii gabayadii hawlada waa beri waa soo noqotay hooyadii falka waa soo noqotay waxaan rabnaa inaad dadka baraarujisaan oo wax wanaagsan u sheegtaan oo wadaniyadii aad ku gabaydaan oo aad geeraaro ka tirisaan oo heeso ka tirisaan oo dadka lagu wacyigeliyo wadaniyadu waxay tahay dal jaceylku wuxuu yahay midnimadu waxay tahay hawshiin inaad qabsataan soo goobtiin lidima dhisin maxaa sugaysaan marka waxaad sugaysaa waxay tahay dadka wacyigooda inaad korisaan oo kor u qaadaan oo aad walaalaysaan Soomaali waa walaalo waa la isku diray dad xun yaa isku diray inaad ku walaalaysaan geeraaradiina iyo ilaahay hibada idin siiyey
إن شاء الله وأقول سني صومالي وأقول ستي وصعني وصعدنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.